انت ognahay marka macadinta aan ognahay number 1 oo Soomaaliya ay lacagaysan karto waa uranium Soomaaliya xaguu uga jira uranium ta Soomaaliya wuxuu ugu jiraa 3 meel hal meel baaris qurxan ayaa laga sameeyay baaristii ugu horeysay ee uranium ta Soomaaliya waxa laga sameeyay dooy dhulka la dhaho waa dhulkan Diisoor iyo Buur-Hakaba dhulkaas dadka raxweynta waxay u yaqaanaan dhulka dooy Diisoor iyo Buur-Hakaba intuu dhaxayso dooyiga Allah dhulka dooyiga ah dhulkaas dooyiga ayaa baaris fiican laga sameeyay waqti hore waxa soo baxday caliyo gaale meel la dhaho inay uranium ku jirto in buur area uranium ay ku jirto buur area waxa lagu yaqaanaa buuro waaweyn ma aha buuro oo teel ah buur eylo Buur-Hakaba buur banooda buur naftigeed buuro kale buur qalin waa bariin ilaa 20 buur oo Diisoor laga soo bilaabo ilaa Buur-Hakaba imaanayo waxay related leeyihiin dahab waxay related leeyihiin macaadin gemstones waxay related leeyihiin uranium waxay related leeyihiin birta macaadin kale waan imanaynaay si aan uga dhamaan marka uranium taas waa marka dooy waa meel xagee kale ku jira wuxuu ku jiraa galmudug galmudug dhammaanteed marka laga soo bilaabo Dhuusamareeb elbuur marka laga soo bilaabo el waa nooca el camal waay dooxada elbuur galaysa laga soo baxaa dag markii aad timaadid Dhuusamareeb koonfurteeda elkii ayaa kor u raacaysa Dhuusamareeb waaba imirig meel la dhahay ayaa laga helayaa markii Dhuusamareeb aad dhaaftid Dhuusamareeb iyo Cadaado meel u dhaxayso Cadaado marka tagtid magaalada Cadaado naftigeed baliyadeed meel kamid ah that area ilaa Galisoor aad ku tagtid dhulkaas waxa waaye waa L shaped elkaas waa macdanta uranium dhulka laga helo waa galal oo uranium laga helo dhul god ahaan jiray oo macdanta uranium dhex degtay lacag laga sameyn karo marka qiimihiis waa isbeddelaa ayaan hore taxbaan u ahaa hadda waa soo kacay hadda markii renewable energy hala aada la dhahay asaga waa renewable ha wax dhamaanay waa yahay laakiin muxuu renewable ku yahay mataqaanaa sorry renewable ma aha laakiin emissionskiisa carbon dioxide ayaa zero ah emissions ma laha asaga laakiin waxaa dhibaato ah inaad tamar u bedeshid ayaa dhibaato technologyga dhagaxa annaga waxaan gali karnaa Soomaali ahaan dhagaxa uranium meesha areada laga helo inaan shirkado iyo waxaas joint venture inaan la noqono oo la shaqeyno oo Soomaaliya ay qayb ku lahaato shares iyada ay leedahay shirkadda ay leedahay shirkadaas markii loo yeeray dhagaxii ay jabiso ay qarxiso dhagaxii uranium ta ku jiray markii la soo baxo waa la shiidaa chemical processes waa weyna la gelina wuxuu isu bedelaa wax loo yaqaan yellow cake wax la iibiyo marka yellow cake wadamada Afrikaanka iyo wadamada saddexaad adduunyada technology-gooda wuxuu ku egyahay dhagaxnimada inta laga soo qaado uranium-ka dhagaxa laga soo baxo oo laga dhigo yellow cake waxa waa oxide of uranium oxide marka waa budo oo yellow ah waxa loo yaqaan yellow cake Soomaaliya marka waa gadi kartaa lacag ay ka sameyn kartaa aad iyo aad u badan ayaa ka sameyn kartaa waxa jirtay kiiladiisa marka ogaayaan dhaweeyay wuxuu ahaa halka kiilo oo yellow 80 u ahaa $80 u ahaa kiiladiisa marka halkii uu ahaa marka wax badan haysa area badan dhul badan haysana oo baashay ku jirto booska saddexaad waa buuraha Goolista ee silsilad ah ka soo bilaamayso gobolka Awdal Boorame area ilaa ku gaarayso baris shishe ayadaasna meelo ayuu kaga jiraa gobolka Sool xataa waa laga sahmiyey ma badnayn commercial ma noqon Sool uranium in waa laga baaray waxaa jiray marka 1982 International Atomic Energy Agency ayaa raboor weyn ka samaysay uranium ta Soomaaliya
marka waxay leedahay galmudug inta lagu qiyaasay ka badan ayaa laga heli karaa uranium haddii baaris sax ah la sameeyo oo casri ah la sameeyo riboorka sidaasuu ku dhammaanaya recommendationkiisa waa riboor ilaa 200 page ka badan ah oo aniga aan hayo waa la heli karaa available in the Google the uranium deposits of Somalia 1982 ayaa la riboorkaas oo soo baxay waxay summarization ku sameynaysaa howshii laga qabtay Soomaaliya uraniumta laga qabtay ayaa oo la soo koobay ayaa 200 page ayaa laga qoray marka waa reference aad u fiican marka uraniumta Soomaaliya galmudug iyo meelaha kale Soomaaliya la rabo in la horumariyo arrin waxaa jirtay siyaasad la xiriirta iyo amni iyo geopolitics intaba waxaa la yiraahdaa galmudug iyo areada dhibaato uranium aad ku sheegtay maadaama shabaabkuna aad u joogo ahlu sunna iyo iyagu ku dagaalami jireen galmudugtii hore iyo dowlad goboleedyo yaryar oo meesha ka jirta buuqaasi ka taagnaan jiray uraniumkay la xiriirtaa oo Iiraan baa si lug ugu laho bahalka soo doonatay bal arrintaas Soomaali u faahfaahay arrintaas waa hore ayay ahayd marka siyaas la lahaa actually waqtigii Yusuf Garaad oo wasiirka arrimaha dibadda ah dowladda ahayd ma aqaan tii farmaajo ama tii sheekh adiga ma aqaan mid ahayd laakiin Yusuf Garaad inuu ahaa ogaa wasiirka arrimaha dibadda arrintaas wax ka qoray marka waxaan u qaadanay annaga Soomaali ahaan uranium iyadoo dhagax uranium ah oo nadiif ah in la helayo ayaan u qaadanay oo Iiraan intay soo qaadato la cararayso saasna ma aha uranium waa dhagax oo inta badan uranium laga helayo ay yar tahay marka laga shaqeeyo ayaa xogaa uranium laga soo bixi karaa shaqada waa maxay dhagaxii in la qarxiyo buuruhu ku dhagax meesha ku jira laga soo jibiyo la shiido chemical process la geliyo ka bacdin uranium oxide la helo yellow cake waa wax la gado ma aha dhagaxa uranium kaasoo process from dhagaxa to yellow cake ayaa chemical process oo jimniyaal waaweyn warshado waaweyn ay sameynayaan oo markaad 5 kilomitir usoo jirtid warshada jimnigeeda aad arkaysid wax Iiraan intay meelaha cararto ay boobto ay la ordaysa ma aha sidii Yusuf Garaad u fahmay waagaas ma aha